kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaana daawanaysa ay ku soo dhawaada barnaamijkeennii abwaanka iyo ereyga oo marti imika inoogu yahay ama caawa noogu yahay abwaan nin la yidhaahdo maxamed liibaan ismaaciil. maxamed liibaan ismaaciil muddo dheer ayaanu runtii asxaab iyo niman aada isugu dhow ahayn. waxaan wada galnay xaruntii la odhan jiray xalane ee tababarka oo marka ardayda dugsiyada sare ay ka baxaan la galo. maxamed liibaan xaruntaasi waxa uu ka tiriyey gabay aada u qaaliya runtii oo aan jeclahay bal caawa inaan ina xusuusiyo duruufihii xalane sababtii aad ku keentay gabaygaasi iyo gabayga laftiisiiba. xalane waxaa la geli jiray dugsiyada sare marka ay dhammaadaan ayaa waxaa loo geli jiray tababar milatari oo muddo 3 bilood halkaa lagu qaadan jiray. waa yaqaanin dadkoo dhim waa wada ogyihiin. dabeedna waxaanu anagu ka mid ahayn si aad ogtahay waxaynu ka mid ahayn raggii galay 1983gii. xalane ardayga waa taqaanaayo isagu dee siduu isaga yahay arday faracas isaga yahay ee iska joogo gurigiisa iyo hooyadii iskala joogay arrinkiisu isaga fudud yahay ayuu halkaa tagaa. wuxuu la kulmaa duruuf ka bedelantii uu filayey. xero askari buu soo galaa. qaabkii askari loo tababarayay loola dhaqmayey qaabkii ayuu macaamil buu galaa. maalintaaba waxaa loo geliyaa dirays baa loo geliyaa haddii alla idmaayo dee tababar kaba waaweyn baa loo tababar milatari baa loo bilaa. halkaa anaga oo ku jirna oo tababarkaa ku dhex jirna ayaa waxay tixyaroo gabaya ii soo diray nin aanu saaxiib ahayn oo loodhan jiray axmed dubad axmed dubad loodhan jiray. tixda waxaa halkudhigeedu ahaa warna iiga keen xalana aad kooriska weerdi. axmed baanu ka warramayaa xaaladdii uu filayay ee xagga aanu ku niqiinay iyo xaaladda hadda aanu joognay halkan xalane sida ay u kala duwan yihiin. gabayga sababtaa ayuu ku dhashay. axmed baan ugu warramayaa. iminkana waxaan bilaabayaa gabaygii. kulka dhacaya kaysaha adduunka ahba waxaa jooga koonka isbedelaya iyo xilliga kala wareegaya hadba kulanka waayuhu war buu soo kordhinayaa ee marmarbaadadoo kororhsi raba kalow cantuugtaaye ka soo feenaadoo moodaya iyo halabka ruurkeeda marmarbaad dukaalgabdarraa kor uga lacda. kadeed kaa dhic waa xalina aad kadimadiisii iyo kadisaan u soo galay marun kaamkii gaajada. waxaa la tirinaya markaa madaxdiisi ay u kala sarraysay iyo ciidamadii lagula kulmay halkaa ayaa la tirinaya. aadan gabyowna loodhan jiro haysaba laga bilaabaya korneyl aadan nuur iyo sankiiyo kooxa daba jooga kabtan waacale koojaar xuseen kamanyarow bawnay karka damiya cali qaawane iyo kibir xumow caasi kasmagaabanow xaaji guray kabalada hoose kabaqaadyadu uu soo dirtay iyo 10 kalaabina kambalka uga soo galay dugaagka in ku xaadira. dharaartaa sidii layla kacay waa kabtiyayaaye kallahaha sidii baan salaadii u kacayaaye 1-2 sidii baa askarii kilkiliyaaye sidii baan kadeed ugu jirnaa kaciyo boodiya sidii baan korkayga ugu dhegay kaaki fool xumi sidii baan kuyuga u gallaa kowda duhurkii koob iyo bilaydh baan sidii kor ugu haynaa sidii baan kamaanda u hayaa kaadinuugyada. raggii kibirka waalaa isaga ayaa wuxuu yihi raggii waxaad ka mid ahayd diibada kale ku wacna arrimaha. raggii kibirka waalaa axmedow kaadi dhigi waaye kalaamu ma holado geesigii koon labaan jiray ee kooxwada haddaad ii tiqiin keerlas baan ahay haddaan waaye kaynaani jiray dhime karaarkii. adigaa kobdoogliyo fadhiya kayma harac weyne oo ay ku koolkooliyaan kahaiyo luule kalgacaylku meeshuu fadhiyey kaaluf baa galay hadday adiga kuu toosan tahay wayga kala taal. intaasi aan kadaaliga ku jiro kududka iyo boodka uu kadinka ariga fadhiyo qaba kamiintiisa ee subaxba kii igu xigiyo koox la badwaanayo ee eyga koofida xun lihi igu kormeerayo kaftan iyo ciyaaruma hollado kuhashadoodiiyo ninaan hay kilkilin waad ogtahay kiis inaan qababo. ya salaam waa ragaag. waxaan ogahay maxamed liibaan oo inaad imika tahay agaasime waaxeed wasaaradda beeraha. waxaa igu maqaalaa in aad samaysay ku noqotay hees howleedadii ragga maanta muxuu soo kordhiyey oo halkii la odhan jiray ragna waa raggii hore hadalla waa kii uu yidhi maxaa soo kordhay duunyadii la dhaqan jiray iyada lafteeda maxaa ku soo kordhay bal arrimaha iyo saad wax uga tidhi nooga war. allahuma salli calaa maxamed. sidaa sheegtay caliyow dunidu dee maalinba waagaeedaa joogay iyo xaalkeeda
maalin baan anoo radio Hargeysa dhegeysanaya waxaa soo galay barnaamijkan dhaqanka oo uu akhriyayo ama wadii biidanka leeyahay ana fulinayo abwaanka weyn dhaqan yaqaanka ah Muuse Cali Faruur barnaamijka wuxuu ku soo qaatay raggii hore iyo qiimahoodii iyo siday hadalka wadii biidanka wax walba magac ugu bixiyeen siday waxooda u maamulan jireen siday af Soomaaliga u horumariyeen ayuu kaga hadlayaa halku dhiga barnaamijkaasi wuxuu ahaa raggii hore hadalla waa intuu yidhi faaladii waxay la soo gashay raggan dambe sida uu ugu dhaliilan yahay matalan yani aan u ahayn ragdii af Soomaaliga iyo diibiidankeeda lay u soo jeeda ama wax ku kordhinaya hadalladii uu soo qaatay waxaa ka mid ahaa iyadoo ay sax tahay runtii tahay inay geed walba magac ula baxeen oo waxaa dhir dalka ku taalla raggii hore magacyada dee u bixiyey waa run ragganna waxaa ku soo korray intii ay dambena waxaynu ku soo korray geed garan waa la yidhaah geedkii bay magac u bixin kari waayeen raggan dambe kiina garan waa bay yidhahdeen halkaa barnaamijkaasi markuu dhammaaday ayaa waxaan isweydiiyey su-aalo waxaa soo baxday mahmaan odhanaysa oo iyadana raggaa hore un lahaa haddii lagu sheelo waa lays sheegaa haddii lagu sheegana waa lays yeelaa waxaan isi malaha wallaahi waxoogay sheelida baa raggan dambe ugu jirta dee ragna waa raggii hore hadalla waa intuu yidhi iyadoo aan raggaa hore waxba laga nuqsaaminayn qiimihiisa uu leeyahay dee haddana raggan haddii la yidhao dee ragba ma tiidin iyada lafteeda malaha waxoogay sheelid baa ku yar jirta su-aalaan markaa isweydiiyey dhowra waa raggii hore iyo raggan iminka halkee bay horta marka hore ku kala rogmayaan waxaa laga yaabaa qarniga 13 ama 14 in laga waramo ragna waa raggii hore mahmad waa taagan tahay hadalla waa intuu yidhi marka dee horta bar raggii hore in meel lagu joojiyo aanay dee wixiiba wada qaadan oo sanad qarni walba tooda un loogu doorin oo loodhan raggii hore ayaa dee lahaa haddiiba dee aynu wax samayno waayahay waa in raggii hore iyo raggani horta halkee u kala roga su-aashaasi mid bay su-aasha labaad ee kale ka dhalatay waxay waa maxay waayaha talow raggaa hore ku barbaaray uu joogay iyo ka iminka raggan iminka xaaladiisa iyo isagoo ku shaqaynaya waktiga iyo waayaha jira maxay ku kala duwan maxayse ka midaysan su-aasha saddexaad waxay ahayd raggii hore muxuu sameeyey ee aan raggan dambe samaynin haddii raggii hore gebyi jiray dee waa la gabyaa hadduu heesi jiray dee waa la heesaa afku isagu waa afkii hooyo uno dal waliba waa leeyahay oo dee isagoo kaa iska furanee dee waxna ka dhinmaan waxna lagu daro baa burburkiisana waa leeyahay wax ku soo kordhana waa leeyahay laakiin waxyaabaha ugu muhiimsanee raggii hore isagoo qiimihiisa labaan waxba laga nuqsaaminayno ay aad ugu mahadsan yihiin haddana raggan dambe aanu samayn karin maxaa ka mid a waxyaabaha aad qaaligaa mahmaaha ka mid ah oo aad adiguba malaabere dhexdii aad sooyadii bidanka leeyahay isku dayda inaad wax ka samayso waxaa ka mid a hees hawleedada xoolahooda geelooda way u heeseen oo adhigooda waa u heeseen oo haddii alla idmaayo dhirtooda magacya ula baxeen wakaa waayahay waxaa halkaa ka muuqatay oo raggan dambe ma wuxuu talow u heesaa baanu haynin ilaa haddeenu geelii iyo adhigii iyo wuxuu heesnay maalintii horeba iyagu heesayeen heeso oo heesi un dee mid kale ka dabageyno dee toodii un bay noqonaysaa ilaa waxba kagama duwana geelii iyagaa u heesay adhigiina maxaa cusub ee loo heesi karayaa bay noqotay raggan dambe baladibidanka ilaa haddii lagu sheegano waa lays yeelaa haddii raggan dambe waa inuu istaas yar sheegaa ba lays yidhahdaa war maxaad qaban waxaa ii muuqday sawirkii markaa fursad ah in xoolihii la dhaqan jiray ilaa waxaan kale dabadaa ka yimi ma lihiin xoolihii la dhaqan jiray geela iyo adhiga iyo loodii mar hadday u heeseen meesi ku soo kordhay dhaqashada ayaa ii muuqday meesigaasi waa weeye baashan shinnida la yidhaahdo berigii hore lama dhaqan jirin imika waa la dhaqdaa dee waynu ka warqabnaa xolaa la dhaqday ka mid tahay fursad baa ii muuqatay haddii oo horta haddaad shinnida hees hawleed loo sameeyo dee malaha waa samayn kari lahaa waa la erga yani dee marka la yidhaahdo dee rag wax waa samayn karaya wuxuu wax u sameeyaabuu waay oo dee aniga wuxuu leeyahan jirinba maanta ragga jooga wuxuu leeyahay dee ma jirtee waa dunidii waa global waa tii la isqabsada halkaasay ka dhalatay heestaa shinnidu dabeed waxaan isku dayay bal inaan heesta shinnida oo hees hawleeda shinnida sameeyo kolley waa wax inagu cusub dhaqan badan umaynu lahayn
dabeecadaheeda aada uma naqaan waxna dee markaad samaynayso waa inaad dabeecadaheeda iyo xaaladeeda iyo siday u nooshahay iyo haddii waxtarkeeda iyo waxyeelada aad dee ka sheekaysa intii aan ka garanayey ayaan isku diray waxay leedahay boqor ama boqorad talisa qaab maamulkeeda leedahay boqorad bay leedahay gaadh bay leedahay ilaaliya boqoradda waxay leedahay haddii alla idmayo shaqaale shaqeeya systemkaasay leedahay waa dowlad dabeedna halkaasaan ka bilaabay amiir talisalay baan idhi amiir talisalay gaadh ilaashalay ool shaqaysalay abuurtaada iyo acmaashaaduba aayad weeyaan addoon fiirsaday oo aqoon lihi ilaahay qiro waayahay waa sii socotaa waa diibidinkiilay waa sii dhex galay waayahay maxay samaysaa may noo samaysaa malab bay noo samaysaa waxyaabaa laga soo saaraan maalin aan tegey meel iyadana naloo soo bandhigay kariim baa laga sameeyaa shamacan yaree la shitay ee haddii bidankeelay anaa la shidi jiray berigii horaa laga sameeyey arrimahaas ayaana ku jiray saafi malab iyo kariim subaga iyo siraas royaba noo sameeyaay shinay saaxiib waan ku saacidi saafi malaba kariim subag iyo siraas hurayaba noo sameeyaay shinay saaxiib waan ku saacidi waayahay raggii hore geelooda dee bahalaha cuna iyo wixii oo dhan buu dee ka hadlayay yani habaarqabihii hoolibsa laha ayuu ku heerina horuga caro waraaba oo kale markay geela kala hadlaya sidaasi lamida xoorka bahal la yidhaahdaaba cuno bahasha oo dhibaato badan waa isoo shaasheeyana dabeed anoo la hadlaya ragga dhaqda waxaan ku yidhi xoorka shuushleh iyo shaashadiisaba meel shateen liyo sheel ka saaroo shiila oo shuba macnaha meel sare oo aanu gaari karin dee kaga xafido oo dabeedna bahasha dee dhaqda oo shiila oo shuba waayahay maxay ka heshaa ama maxay ku darartaa maxay cuntaa waxaa ayaa iyaduna soo baxday waxaa ka mid ahaa markay dhabaq iyo dhiroonu baxee dunyataabay dhayda malabka ah noo dhigtaada oo noo dhigtaysa markay dhabaqa daaqdee dee dhirtaa quruxdale daaqdaabay dhayda malabkaa noo dhigtaadoo noo dhitaysa waayahay maxay ka heshaa shay waliba waxbuu ka helaa nolosheedu halkay ka heshaa halkay ku faraxdaa halkay qiimo u leh waayahay xooma deedamaba markaa yidhi xooma deedama waxaa dabacu leh oo ay ku darartaa degaan nabadeed aan diqiya saro midna lagu darin waxaa dabacu leh ay ku darartaa kaymo doog iyo dusha ubax kuleh ay durdurayaan dooxyo iyo elo waa dhulka ay ka hesho ee favorable conditionkeeda weeye waayahay waxaa ka mid a dabeecadaheeda yacnaa gaarida sida gaariday wax u kaydisaa dhul nadiifa bay wax ku kaydisaa waxay u xidhaa dumarkeennii gaarida ahaadee waxbay kayd bay lahaayeen qaab wanaagsan bay u kaydsan jireen oo nadiif oo aan waxaasi waxba noqonayn hadduu muddo dhan iyaduna sidaasi lamida ayay u kaydisaa waayahay kaydin gaarile kariimka alle waxaad karahdiye kaaluf kuma galo oo kul kuma dilo kulku waa waxyaabaha dila aadee jeer ku dhibato kaalufkuna waa markay kacdaa laygu yidhi kaydin gaarile kariimka alle waxaad karahdiye kaaluf kuma galo oo kul kuma dilo waayahay way sii socotay allahuma salli calaa maxamed bahashu dee waa dagaalantaado marka waxeeda loogu tago dagaal bay leedahay hadday kugu xayaanto haa bahashu way dagaalantaa oo hadday kugu gadowdo ilaa iyo dhimashay gaadhsiisaa dadka oo waa bahal dagaalantaa marka dee ay kugu gadowdo marka waxaa laga warraya dhaqamadeeday ka mid tahay gadood dhiilo gadood dhiilo ay markaad dhirif tahay ninkaad dhooshiya dhimbiilaha kula ku dhirbaxdaa walee dhabatoy dhaaxa kaa durug buu yidhi walee dhabatoy dhaaxa kaa durug waayahay sida ciidamaday u duushaa bahashu markay wax weerarayso meel hadday soo gasho ciidamadu oo rasaas ku ridaan dee dadka waa iska duldhacaa shayba shaybu ka duldhacaa dee waa dunidaasi gelilaf baa ka dhaca sidaasi lamida hadday suuq soo gasho xoon gadoodsani qofba qofku ka duldhacaya qofna wuxuu faraa ku hayay isagaan eegin buu cararaya waayahay duulis aarmiley dagaal gulufley deeq gobeedley wixii kuu daran ilaah kaa dayr waa loo ducaynaya raggii hore geelooda iyo dee adhigooda waa u ducayn jiray oo ducadiiba iyaduna dee teennana waa loo ducaynaya oo dhawaaqteeyoy dhawaaqaa nabad waa heesihii geela hore dhawaaqteeyoy dhawaaqaa nabad oo dhashaa nirig oo dhexdaa kurus manaa waa dee markaa waxba uma hadhin waa inay qurux badnaataa nirigna dhashaa dii biidankay nabadna tahay oo aan dhawaaqeeduna markaan colaadii daani jirin sidaasi lamida wixii ku daran ilaah kaa dayr wey waayahay
qofka sida xun kuu dhaqda dee aan adiga ku hagaajin dhaqankaaga iyo wixii aad u baahan tahay dee kuu bogin malab ha u samayn oo waa jiray raggii hore baa haddii idinkele sanad guday wuxuu lahaa xiliyo hawleed iyo xiliyo dooga xiliyada hawleed waxaa kamid ahaa dee jiilaaladii iyo dabadna geela waa la waraabshay waa hawl badna wiilaan durihii kaa dul yeedhini duuma tuurtayo yaanu doogana doobi kuu culan bay odhan jiray raggii hore duuma tuurta sidaasi lamida wayrax shuqubale shuqubu waa bahal yaro xoon oo sideedoo kale qaniyo kulul oo wixii wixiisa ku doonta cuna wayrax shuqubalay ninkaan shaqadiiya shaafigaa baran aan shin kaa bogin sheeganaha malab hawsh xumad inoo haw shareeray kaa malab dee ha u samayn yani haddii bidinkeeda leeyahay kaasi dee xaq uguma leh inaad malab u samayso waayahay baashii baan arko magaalooyinka dee waata iminka la soo geliyey magaalooyinka baa lagu dhex beerayaa subaxii markay soofto dee meel kale uma sooftee maqaaxyan yare shaaha lagu kariya meel walba inan la fadhido ama inan la fadhiyo waxaasay dee ku sooftaa ka day dee malab dee ilaa dhabaqiyo mahayso mankii ma hayse quruxdii ma hayse waxaad arkaysaa markaa koobkii nin loo dhigoba 10 ku dhacdo dee gubtay dabeedna haddii taana dee geerideedii baa badato halkaas iyadana loo baahday idin la yidhahdo war baashii dee waa tan la gubtay maxaa talaa dabeed wuxuu yidhi halkaana ka yidhi wuxuu yidhi halkaan haddii la idmaayo markaas halkaan su ka soo qaado isagana wuxuu yidhi maxay badataa maxay badisaa oo barshaha malab noo bacrimisaa bartay daaqdiyo baydka dhigataba aadmi bada waa biga iskuuloliya bayl ku shidaye baashiiba maratay waxay noo samaysaa dee dhammaataybe ya maxay badataa maxay badisaa oo barshaha malab noo bacrimisaa baydkay daaqdiyo bartay daaqdiyo baydka dhigataba aadmi bada waa biga iskuuloliyo bayl ku shidaye halkaasay kasii socotay caawa inta aynu haddii biidankeeda leeyahay waynu sii wadi doonaa insha allah inahaasaa iminka aynu kusoo haddii ku yarakin doonaa maadaama haddii biidankeeda leeyahay aynu cabaar wadnay ya salaam runtii waa hees hawleed cajiib ah laakiin waxaan u malaynayaa maadaama aad adigu qaadatay doorkaa hees hawleeda shinida waxa ku harsanaan doonta hees hawleedii hore cod lagu qaaday lahay bal haddaba codkii shinidana waxaan u malaynayaa inuu ku harsan yahay sidii ninkaas shinida u heesi lahaa laxankaa adaa ku maqan baan u malaynaya iyo in badan oo kaleba de waa inay ku maqnaataa anigu haddaan haddii beedanka helay in soo dhigay dee kolley waa isugu tegaynaa ilaa raggii hore haddii beedanka helay waxooda waa isugu tegay oo waa watay oo jiibkeeda iyo jaantaba waa laisdeeli waa isugu tegaynaa laakiin imika waxay u dhacaysaa sidii geela soomaad garan waxaad ka dhigayaa isagoo waraabinaya markan uu leeyahay safi maalaabiyo alla kirim suubagiyo alla siraad horayaba noo sameeyay alla shinay saaxiib waan ku saaciid waraabinaya oo kale ka dhigaya waa iska heestii dee geelay la mid tahay baashiida waxaynu ka dhignay baxalaynu dhaqanmadayadii dabeecaddeedun bay u eg tahay dhawaaqaya nidaamka iyo sistamku dee waa sidaasun ilaa iyo maalintii hooyaale ilaa iyo adigu waa dibide bal waa arrin laga fekeri doono maya in badan iminka dee in badan hoyaalay ilaa weligeedi hoyaalay unbaa socota dee iminkana waa socotaa haddaa hebelgabyayo wade hoyaalay buu ka bilaabmaya waa run de haddaynu kaskii waxaan u samaynana waxa laga yaabaa dee waa isku dayaynaa ilaa waa raggii dee way leheladiiga codkeedii leedahay waxaa ku jira heesaheeda kale aan kusoo khatimaya xabadan u dambaysa aan kusoo khatimaya aadmuhu wuxuu is yidhi samee malab ama dadku malab buu is yidhi samee niman dee kimikaliska sameeya curiyaasha isku dardara haddii biidanka leeyahay saaniciinta ay adibida saynisyaanku waa isku dayeen laakiin keedii weli lama samayn nooceedii lama gaadhin marka waxaa ku jirtaa heesta saaniciinta iyo saynisyahanada siraha aradka iyo saamiga hawada inay saanshaan suudiga u maray saadsho sisi malab oo kaa samaysaa suubin kari wa hal sisi oo kaa samayso oo kale malab waxaasan sameeyeen laakiin dabiiciya laakiin kaaga sisi ka mida samayn kari waaye wax alla waxa aanu xaydayne cirkaanu gaadhnay dayaxaa la gaadhay dee waa ilaahay baa ku abuuray sidan waa shaqo ilaahay qudradda dee qiimo ilaahay bay leedahay marka halkaasayna iyada kusoo joojinaynaa waaya maxmed waxaa jiray gabay kale oo runtii aada mar ii tirisay oo aan jeclaa wakti noloshu adkayd magaaladan hargeysa
oo dadku intay markii hore ka soo doogeen colaadihii ayaa haddana dagaalla sokeeya ka dhaceen magaalada waa la kala qaxay noloshiibaa adkaatay wax dib loo liqo ayaa la waayey dadkii wuu sinmay qof mutacalina iyo qof magaalo jooga iyo mid meherad haystay iyo mid shaqaalo dowladeed ahaa iyo wixiiba noloshii waxay gaadhay wakti aad iyo aad u adag dabadeedna waxaa jiray maanso aad duruuftaa ku cabiraysay oo qof waliba uu markaa gaadhay heer uu sidii u doogi lahaa how to survive ay noqotay markaa waxa ugu weyn ee markaa laga fikiro balmaansada iyo sidii aad ku tidhi halow waa runtaa waa tii dalka dagaala ka dhaceen burbur badan baa dhacay waa tii la qaxay waa tii wax waliba dee distributed noqdeen yacnaa dee dunidii iska noqotay dalkii baa lagu soo noqdo burbursan sidaa shaqo ma jirto dowladi ma jirto dee alla idmaayo wax laga shaqeeyaa ma jiraan daaro maran oo haddii bidii qashin dhex yaalla baa lagu soo noqday waxaa ugu horreeyay la bilaabay baayac mustar ku noqda baayac mustar intuu ka gaadhi nin waliba haddii bidan kale dee baayac mustar waxay waa yar socdeen waxaasaa lagu yar dhex socday dee raggii suuqiisa ku soo baxay halkee laga qaaday mid kaari noqday iyo mid maqaaxa yar shita iyo mid isyidhaah baldilaal iyo nin walba dee nolosha inuu noolaadaa bay dee ula gashay iyadoo taa la yskaga jiraaba haddana waa tii dagaalla dambe dhexeen dekadihii waa kuwii xidhmay waa tii arrinkiisii adkaaday dilaaliin baanu hayno marka annagu koox yar oo dhowr nin ahoo dilaaliin oo meel haddii idanka leeyay qoladaa dilaalkeeda waxa dadku keenkeeno ama wax la yar iibiibisa dee la yar wadwadaanu ahay ayaa dee tani halkaasaaba maxaa mutacalina meeshiiba dee hadal ma jirin qaar baa keeriyoonayaashu qaar dabareyn dee dhan baa tidhi halkaa annaga oo haddii ciidankee yar wadna ayaa waxa dhacday dekedan berbere oo markii hore dagaal badani ka dhacdo lagu kala qaxay ayaa dub loo qabsadoo dabeedna ciidankee furantay badeecadu markaa waxay ka iman jireen etoobiya iyo dhul bay ka iman jireen oo qaali bay badeecadu ahaayeen badeecadihii la iibiyey oo suuqa yaalla ayaa dee dekadii furantay dabeedna si deg dega bay doonyaha iyo maraakiibta u keeneen ashcaartii markiiba qiimo jaban bay kusoo gashay suuqii hore alaabtii taalaaba maalin walba qiimayntaa leegi dhacay qaalin walba qiimayntaa waxbaba waa la kala iibsan waay wixii horeba stagnanti baa la galay yanaa dabeedna waxay noqotay dee waxa laga daaya dibida maxaa la iibiyaa xaaladdu waa adkaato waana sheeke iska yar kaftan oo gabaygu maaha gabay macaynkaas waa iska gabay magaalo oo gabay kaftana wey dabeedna maalin anigoo meel goor gowdiya maraya oo nin aan meel maalintii hore ku yidhi walba ku imanayaana i yar gooyado xaalkaygu iska yar maaragtay socodku iga yar xun yahay ayaan ku soo baxay nin aanu saaxiib nahado meel markaa jaad ka qaadanayo isaguna berigaa dabcamisarku baa loo yar shaqayn jiray security-ga iyo waxaasaa laga yar shaqayn jiray qolo u yar shaqeeyo aanu yar xamano waa ku yar ladan yahay ayaa noo dabeedna kii baan ku yidhi waro meel gaaban ka arko war ii dhiibo dabeedna isagiina iima garaabin maalin dambaan haddana iyadoo aanu adiibidankeley isagoo sheekayna dadku dee waa ka isxanta ama kaftamee isagoo adiibidaya yar kaftamayo kaftanka igu yar leexinaya ayaan yana ku soo baxay meel yaroo bakhaaro marka dambe aanu isugu nimaadno gabaygaasi halkaasu ka dhashay mana ahayn gabay weyne xoogay adigu wuxuu ahaa xaaladaa ka yar warramayey ayuu ahaa adigu xaaladaa ka warramaya oo weliba xaaladaasi aanay runtii ahayn xaaladii idinka idin haysatee ummadoo dhan duruuftii waktigaa lagu jiray oo dhabta ahayd axmedow xagaayada dhacay iyo xayska dii waayey adduunyadan xaraabiya dagaal lagu xajiimeeyey ee camal la xaradhaamiyo iyo xaabkii ka idlaaday ee holkii ugu xumayd maraya xaalkeedu xil qarsoon ninkii lagu duway iyo xero nabaadiino ee loo xuluulaynayaa waa xog moogya ragga xulashadiisii markii xaakim kugu beegay uu dhaaliyey kugu xawilay laguna xaasyanshay ee sida darmaan loo xil qabo lagu xanaaneeyey nin xaraamay oo daalay oo orod ku xuurtoobay oo xayn habreed yoomka galay ka xarbajaynaya xasha lilaahi inaad xamatid waayab waa si xaaladuun oo nafluhu ma xejo liibaane ninkii laba habeenoo isxiga xuka ku casheeyey ma xamdiyo ee waa caadadii inuu xareedsha adna waxaa ku xadantaynaya waa xarbadii shaarki yeelo yay dheelo laba kula xawaarayna gabayga waxaa layaha ninka soo xiniiya leh ayaa dhextaalkiisu yahay ninka soo xiniiya leh sabaan xiijiyaa dhacay haddii aan ilaah naga xalilin xiisadaha taagan aan eebbahay naga xoreey nala xawaare asxaabtaydii oo markaa nin walba halka balaa xaalku yar xoqanaysa iyo siday la yar marayso dee aan laga yar warramaya gabaygu waynu deed yar warwarrama laga warwarramaa
axmed weyne waa kaa xanibay xoogsigii shaqo mid yaroo meel yar xogay reerka gu xaasaamin jiray oo xalwad yar ku samayn jiray oo dabeedna markii dee rabashba ka bixi weyday albaabada xidho maantii dabeedna suuqa iska soo galay weeyi axmed weyne waa kaa xanibay xoogsigii shaqo ee xirfad iyo dadaal wuxuu ku waday haatan kale xor masnacii xalwada suubin jiray xeerarka u jeediyey goortay u xasili weyday buu baababka u xidhay nin kastoo xiniinya leh sabaan xijiyaa dhacay haddii aan ilaah naga xalilin xiisadaha taagan aanay bahay naga xoreey nala xawaareen waa raggii mid ka mid a isaga shiine xaalkiisa xoogay baa adigu lacag baa ku yar go'day oo dabeedna rabash baa dhex galay dabeedna dee waa isaguna waa waxay noqotay dee malaa nin wax lagu yeeshay sabankaada waxna haynin dee hawshiisu yeeshay isaga shiine xaalkiisu waajib xamili wah sidii isuga ciblays waxaa xil kale xaynka ugu laabay uu xuubka caarada u jiray jawradii xor xaruntii hargeysiye ka guur xulafadiisiiye ka xidhxidhay xamaantiiyo maryii kana xawaareeye xayraan dhaqaaqii tan iyo ceebta sii dhige berberowdee tegay adigu waaba markii de waa ka faa'iidabo waa wacan yahay iminka dan ka warhayo eekay nin kastoo xiniinya leh ayaa gabaygu markaa mar walba noqonaya sabaan xijiyaa dhacay haddii aan ilaah naga xalilin xiisadaha taagan aanu eebbahay naga xoray nala xawaareen jaahuur waa ninkii madaxda noo ahaa kaabaliidarka iyagu ahaa oo nin aada u yaqaana magaalada qaabka loo maalay ayuu ahaa laakiin dee markan waa nin walba waa kusoo gudhay oo xaalku adagi xeer magaalo lagu joogo iyo xeelad lagu maalo jaahuur wuxuu xili ogaa xeeli garan waah xaska iyo burkay kaga jirtaa xarakadeedii hablihii jaadka ula xeeban jiray kuma xurmeeyaan haddii waaye loo xiisa qabay haatan lagu xooriye xamxamadka iyo maaga waa lagu xariira dee tii shalayna simaad bixina tii cayn dagaalku waa ku nin kastoo xiniinya leh sabaan xijiyaa dhacaye haddii aan ilaa naga xalilin xiisadaha taagan aanu eebbahay naga xoray nala xawaare nin naga mida baa maalintaa markii halkaa warku maray dee kabtankii meelii maqaaxiyi aanu ku sheekaynay uu yii warkabayga gudan maxaad iga reebaysaa ka mid baanay cali baa la yidhahdaa wadaad baanu wadaad yar buu ahaado dee kolkasta dilaalinta ka mid ah gole xaadhan xarun loo goglo iyo xeryo lagu sooro xurmadii wadaadada baryaha cidimo xaalayne haddii waaye la xaasaamin jiray waa xuslinayaane waxaa cali dilaalka u xamilay ma aha xeegaane goortay ku soo xontay u xoreey weysada oo dee islaama eryaday muxuu sameeyaa dee hadal dee talama goortay ku soo xontay xoreey weysada dee oo dee eryaday islaama dilaalka dee u baxay nin kastoo xiniinya leh sabaan xijiyaa dhacay haddii aan ilaah naga xalilin xiisadaha taagan aan eebbahay naga xoray nala xawaare anna xalay hurdada jeer ma leedin xanoof wareerki dareen sabanku xadantaynaya xoqay naftaydiiye xaggii aanu qaadaba tashigu waysa soo xidha war xaggee laga dayaa xaggee ka soo bixi nin kastoo xiniinya leh adigu kaasuu ahaa gabaygu haddii alla idmo isagana intaasaa iminka aynu ku gaabsan doonaa insha allah haddii ilaah idmo waxyaabaha loo baahanya waxaa ka mid a dee raggii hore dee balalkiisii inaad ragga dee maanta u taalla bal in raggii hore horta bal meel yidhahdaan halkaasuu dee ku joogay si dee maaragtay aan sanad walba ragga hore u furan gabayga dee aynu tirino waa aan raggii hore un dee loogu darin dee iyada lafteeda waa loo baahan yahay in iyagii waxoodii la siiyo dee wax kale dee aan loogu darin geedkan garan waaga la yidhahdo laftiisa oo maalinta abwaankii dhaqankaa ka hadlayay oo isaguna soo qaaday dee magaciisa waa laynaga sugaya ragganaa laga sugaya inuu geedka magaci u bixiyo geedku waa geed dee magaciisa u baahan in la bixiyo haddii aan magaciisa u bixin kari weyno waa runtiisa dee waxay noqonayaan raggaa dhaliilan ee aan arrinkooda dee geed qura magac u bixin karay walba haddaan qiyaaso anuu geedkaasi waa geed tarantiisu waa deg deg qabsashada dhulka waa uu qabsanaya waa deg deg wuxuuba bilo yar intaanu joogin buu dhulkii o dhan ba qabsanaya mayadii qabsanaya hawadii qabsanaya dhirtii buquujinaya wax walba boobaya haddaan idhaahdo maanta oo dee waana xilliga ku habboonayd imanka magac loo bixin lahaa maalinta hore waa cusbaa waayo geela waxay yidhahdaan muuq iyo madhacbay miduu magac kula baxdaa hashu ilaahay curatona magac lama baxdo markay curataa ayaa hasha ama muuqeeda magac loogu bixiyaa ama dabeecaddeeda magac loogu bixiyaa dabeedna maanta malaa sodomeeye sano dee waa ku yaalla dalka waxbaa laga yar garan karaya mala maanta magacii loo bixin karaya maalintaa ninkaas garan waa u bixiyey mabu khaldanen uxusiyey dadka jeedi markii dadku weydiiyey war geedkani waa maxay war geedkani waa maxay isla dhex booday ilaa dalkuibu qabsaday ayuu yii war waa garan waaya iskaga taga ereyga garan waa waa ku jiri jira af soomaaliga oo ragaan la garanay ba halkaa maray geelaan la garanay ba halkaa waa garan waa ku jiray waa jeeyo ninkaasi malaa waaba dadaalay qiyaasti laakiin maanta haddii laysoo magac u bixiya de waa anigu haddaan idhahdo waa geedkan wax boobaya wax walba boobaya talow haddaynu booba u bixino muxuu ahaanaya geedkaa boobaha ah kayntaa boobaha ah
waa dhici karaysa waayo degaankiibuu qabsaday wadooyinkiibuu qabsaday tarantii waa booya intaanu geed dunaba soo gaadho shiba saacado yar ku fidaya ku qabsanaya waa looga baahan yahay ragga magaciisi geedka magaciisi waa laynaga sugaya inteenan iyo inta kale haddii maqanba dee bal geedka magaciisi waa in loo bixiya ilaa imika muduu jiray isagana intaasaan ku dhaafayaa daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gebagabeynaynaha barnaamijkii gaarka ahaa ee abwaanka iyo ereyga oo marti inoogu ahaa maxamed liibaan ismaaciil aad iyo aad baad mahadsantay adaa mudan insha allah